bishii Febraayo 15 keeda intaas oo wacyigelin dhiirigelin barnaamijkeena waxaan soo bandhigi doonaa 15 arday bishii 15 Febraayo ayaan ardayda halkan ku soo bandhigi doono waxaan u bilaabay luqadda Ingiriiska ayagoo aan aqoonin inaan hadlin maanta laakiin hilmaani hadalku ma jirto idinka ayaan idin ku arki doona waxa ay barteen waxa intaas garab socoto ardayda lecture ku soo jeedi doona Ingiriiska ku qodbayn doonaan waxa laga yaabaa unbelievable inay noqoto waxaan aamini karin laakiin waa wax dhacay waana arki doontaan okay gabadha hadda xiriiriya ah barnaamijka xiriirinta waa MVK hal isbuuc aan tareen ku sii barnaamijka waa xiriirinaysa gabadha hadda MVK waa tareen ku sii okay waxaad arki doontaan ardayda oo conversation luqadda Ingiriiska ku sheekaysanayso meeshan ayagoo lagu bilaabo ABCD waa shan bil ka hor ardayda waxay soo bandhigi doonaan qeybaha IT information technology oo computerka ku saabsan cilmigiisa qeybihiisa kala bedelan ayagoo ka hadli doonaan faa'iidada cilmiga uu leeyahay iyo waxyaabaha la isticmaalo laaf ayaa ku arki doontaan hilmaani hadalku ma jirto waxaan halkaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa dhammaan guud ahaan waalidiinta waqtigiina qaaliga noo horay aada u mahadsantiin waxaan kaloo mahad gaaraan inaan usoo jeedinayaa warbaahinta Soomaaliyeed oo qayb libaaxda ka qaadatay habsamo socodka barnaamijkani warbaahintaasi oo kala ah midnimanews.com oo mas'uul ka yahay Cabdinaasir iyo bondernews.com oo asigana hadda nala joogo wariyahayna qaaliga Maxamed Nuur aad iyo aad ay u mahadsan yihiin habka ay ugu shaqeynayaan ummadda Soomaaliyeed ee warbaahinta ay u gaarsiinayaan waana laga maarmaan in la helo wariyaal aad u fara badan oo Soomaaliyeed arrin aad loogu farxo waaye waa horumar lagu tilaabsaday oo laga wada baahan yahay wada kaashano alxamdulillah rabbil caalamiin hadalkayga ma ku sii dheeraanay aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum Instagram ayaan rabaa inaan ku qoro iyo Facebook oo bixin internet kan isticmaalo radio qaato oo soo dhawaato khayr Allah ku siiyo السلام عليكم. مركز برشا ونكسر أنا جوا حمدها مرسل إسماعيل عيسى لكن وحاليا أنا مرسل عيسى سوا. فمهات الوحيدة هاي شرف قالي إنت إنه نجد شغل إن شاء الله وحكى لنا وأنا كعور دارتوس لمركز هذا كي يعني مستوى أنا بحكم هذا لودفيكا صوت الجروب وصلنا أول وأنا يوم مجموعة سمعنا يعني كلام الجيم لنا وطلنا كعور لنا وتعيدوا لي شارع منه وسيف أنا لكن ما أنت من هو بوريد ولا حاجة يعني مسكين مكاني قاعد مسوى وحنا بينا من هذا اللي هو محمد عمر وحنا كنا من هذا اللي هو شرف طلع يطلع من شرف جديد ولا شرف طلع السيجارة عارف وعنتي أو سكانبيا اللي يتعامل إذا وحنا هذا اللي هي وحنا بورد البلد الله كذي يدي كلام لا وليش اللي قبلها يركان ku faraxsanahay ruuxantii inaan in badan oo ka badan aan insha Allah in badan oo ka mid aan isbaran doono haddii aan ilaha wadada ugu ogolaado xaruntan hadda aan kala hadlayo maanta ma xisaabin karo inta badan qaarkii hadda carruurta meesha laga yaabo in hadalada ka jeedinaya may galan markaan bilaabay inaan inta soo istaago weliba ma soo istaago xitaa xogaa waxaa isleeyahay اشتغلوا وحيوبة هاي وحي ناسيس أمسك سبتل دولة هاي مركا إنا سويتها إنا دولة وليك إنا حمشوانيا أنا قدام بيجيتها إنا سويستها صوتها ويعني إنه يكون ليسا يرجل بيكون ليسا علم يكون ليتاس هذا ورالك عبد العزيز عبد الرحمن كرواتشو مقام ومانتي جامعات السويد الميت وحوقيا ماشا اسكلا دروما وحان حصوصتا isagoo aad ugu yaqaan markaas waxaana siiyey fursad aan inaba aan caadi ahayn isagoo maxamed uu ka dhawaajiyay wadanka
حالي محل صوبر كم بدي حساب أصلا هذا وصحية لبس سويل أنتو سويلش ككبر عليه أول حلاقة القف ويلا ده وصلنا وحالي يا لغة كلية كعوني كأوف فستيرك يعني يدا في سويلش كقرآن سوي حساب تسوي شقية سيدا درت دوقها حساب تدوسي صار وأنا أسبوع بروح شقية وأنا قرب فني مرة حين أنا أروح حساب على حساب بدل ما كبر تاني مرة وبركو ده أرجع محل جوّا مرة سويش مشي سنة شقية تحسبه الموجودة صار فرصة وقت كان حامل كيلاك مرة حاول أدخل مع صوتنا عبد الرحمن رضي الله عنه مع صوتنا إلى فرصة السيسو مرة شرف بيتا هنا بهالفرصة الوقت مع صار بس لكن وش عنده ما أنا waxaa laga dhawaajay inay jiraan dadaalo ka socda meeshan gobolka iyo degmada Puntland ee kala duwan waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo dadaal markii la sameeyo waxaa la leeyahay soo maaha waa hami weeyaan hamiga waxa ka dambeeya hidsiga ka dambeeya hidsigaasna wuxuu leeyahay meel uu dhaco marka meeshii uu dhacayay ayaa rabaa inaan inoo tilmaamo maadaama ay shaqadaydu tahay oo idinku waad ii dirsatay wuxuu dhacayaa gobolkan aynu ku noolahay 5 sano soo socota ama ugu yaraan aan dheereeyo sababtoo ah haddaan idin 20 sano soo socda wax ka badan adiga xanaaqo sababtoo Soomaali baa tahay 20 sano laakiin waa 20 bilood weeyaan wadankan habka uu ku dhisan yahay habka loo dejiyo yani istiraatiijiyadda horumarinta bulshada wadanka saaxad degmada aynu ku noolahay ilaa 2050 weeyaan waa qorshaheedu uu degan yahay marka kan soo 5 sano uu degan yahay waxa qoran inta dad dhalan doonta inta dhiman doonta طبعا ilaahay og yahay isma hayata sababta kuwa dhimanaya sheegay ilaahay waa qaadso marka waxa weeye waa system oo wadankan waa malaawaan kala badan ka waxa laga yaabaa inuu soo asiibin si loogu talagalay marka intii guri laga dhisayo oo qorshiisa hadda waxaan maraynaa 50,713 qof ayaa ku nool degmada ogtiidaas يصدق يتوقف كنتم تدور صدق يتوقف هيتسجان وشخصنا كهو وضعها مركي وهاي أفرط يليه كن وهاي هيتسجان وضعها على وضع كل أفر يتوقف إني بيهنا كنتم كلنا يبيهنا ونحن هو نكبر الحمد لله رب العالمين وحين كمل هالدجمة لأنه كنا والله دجمويك هدد كودو يكون ريان دجمويك كرنا خاص بيوضعيا waxa badan inta dhalanaysa ee soo degaysa intaas waa kaydka kordhiya Soomaa inta guuraysa iyo inta dhimanaysa wuxuu yahay kaydkii waa nuqsaamay marka magaaladeen waxay ka mid tahay degmadan aan deganahay 15 degmo gobolka degmooyinka ay kaydkooda kordhiyo xagga dadka ay soo nuqsaamay taasina waxay ku hay waxay gelinaysaa farxad bay gelinaysaa meesha degmooyin kale sida Mountspur oo kale to Eldoon oo kale Redvik laga yaabo بيترميان اسمعني باكن إليه ولول بساقة حلو ولول ترد ذلك بقى واحد سليم صدق يتوقف أما شر يتوقف أسكت أما سديد وقف أسكت يقول لك ما مسؤولية بحيث أنا ما ضحك على صارين